kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin lahaantiina meel walba joogtaan waxaad idin leenahay kusoo dhawaada barnaamijka faaqida ciyaaraha. Barnaamijkeena waxaa maanta ku bilaaban doona qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin Bukayo Saka oo dhaawac kaga seegaya xulka dalkaasi England oo Andrew dhili doonaan. haddaba sidoo kale Benjamin Sesko oo kooxda Arsenal ay si weyn ula fariisteen labada kooxood iyo waliba ciyaaryahanka wili wax la isku ma afgaranin laakiin waa uu socdaa wada hadalka iyo wada xaajoodka u dhaxeeya labada kooxood iyo waliba ciyaaryahanka dalab gooniyana Arsenal weli ma aysan ka gudbin. sidoo kale waxaan rabaa inaan kala hadlo xulka qaranka Spain iyo waliba Portugal oo ayaguna markaasi si weyn loo saadaalinayo ama hadal hayn weyn ay ka dhalatay ciyaaryahankan oo la isleeyahay Cristiano Ronaldo markii labaad oo ayuu ku qaadan karaa koobka UEFA Nation League inuu mar labaad oo ku guuleysto maadaama oo horey uu soo guuleystay haddana final oo joogo ayadoo markaasi oo finalka oo uu soo gudbay semifinal ku soo garaacay markii uu qaaday koobka Switzerland oo hat-trick oo ka dhalishay haddana Germany oo guusha oo ka dhaliyay sidoo kalena finalka Spain ayaga isla joogan waxaana laga filayaa 90% lisleeyahay in Cristiano Ronaldo uu ku guuleysto. sidoo kale Bukayo Saka ayaa la leeyahay dhaawac ayuu ka seegay kadib markii xarunta tababarka ay ku qaadanayeen xulka Ingiriiska ee dalkaasi Spain markaasi leeyahay waa ay dhaawac ayaa soo gaaray oo dhaawacaas dartiisa ayuu u seegaya ciyaaryahankan kulanka markaasi ay qaadan lahaayeen. sidoo kale waxaa la sheegayaa in Arsenal ay dalab rajaynayso in mar dhow ay ka gudbiso Benjamin Sesko laakiin weli ma aysan gudbin. Cristiano Ronaldo ayaa asna sidoo kale waxa uu sheegay in uu si weyn markaasi u taageersan yahay ciyaaryahan Leo Messi. Ronaldo xilli laga wareysanayay Messi sidoo uu aragtaa ayaa waxa uu sheegay inuu Messi si wanaagsan u aragayo oo taageerana uu yahay sidoo kalena ay isku fiican yihiin muddo 15 sanana ay isla soo wada ciyaareen dalkaasi Spain oo ay competition ka wada dhaxeeyay asigoo Real Madrid iyo asigoo u dheelaya Messi u dheelaya Barcelona. sidoo kale waxa uu sheegay inuu aad u xiiseynayo in Messi uu aragyo asigoo English ku hadlayo maadaama uu luqadda Englishka uu si fiican u aqaanin oo u baahan yahay mar walbana translation in loo sameeyo ama qof uu tarjumo ama dhigaha tarjuma inuu gashto. sidaas darteed waxa uu sheegay inuu markaasi yahay qof oo si weyn u xishmeynayo oo xishmad aad iyo aad u weyn oo u haayo Messi. sidoo kale waxa uu sheegay weli inuusan ka caajisin inuu markaasi ciyaaro kubadda cagta oo xilligan ku raaxeysanayo sidoo sheegay Ronaldo weli ma aan qiimeynin ama aan gaarin go'aan aan markaasi kaga fariisan doono laakiinse waxa uu sheegay sidoo kale inuu markaasi ka xun yahay oo san diyaarna u ahayn xilligan inuu club world-ga tiimamka ah inuu ka ciyaaro maadaama invitation badan ama talabaad fara badan kaga yimaadeen kooxo dhowr ah oo kamid ah kuwa hadeertan ka ciyaara club world-ga bishan aan ku guda jirno. sidoo kale Cristiano Ronaldo waxa uu sheegay Yamal in dadka inta badan taageeraya ama pressure-ka fara badan ay ku wadaan ciyaaryahankaas ay ka joojiyaan sababtoo waa da'yar yahay waqtigiisa ayuu ku jiraa waana muhiim inuu waqtigiisa ku raaxaysto sababtoo hadda pressure saartaan waxa uu noqon karaa mid dhibaato kala kulma ama cadaadis fara badan kala kulma. saaxiib haddii aad soo gaartay ilaa dhamaadka fadlan follow inoo dheh page-ka si share garay oo subscribe iyo follow garay mahadsanid saaxiib. tani inta dib u kulmi doono waa saaxiibkiin Maxamed Kurbaari oo idin leh sida iyo nabadgelyo fi amaan illah.